waa maanse ka hadlaysa qof aad jeceshahay oo kugu dheer kaana jira meel fog, una qoraysid dhambaal codsi ah, waxaana ku bilaabmaysaa sida tan. Dadku kala ayaan dheer, kala dheesha qurux badan, dhamankana ku kala duwan, dhalaalka iyo muuqiyo dheehana ku kala togan. Dheemantaan gaclooday sida dhoolka waa beri ayaad igu dhibicdo, waxaad tahay dhimbiiliyo dhamacaan gurayno ku dhex taal naftaydiyo noloshayda oo dhan. Dheehaaga muuqiyo dhalaalkaaga wacanbaa dhiiggayga saaqoo idhalan habaabshee dhulka maad ku nooshahay. Dhabankaaga quruxda leh markaan dheehda ulashada ama aan dhankeediyo dhabarkeeda eegaba, jacayl aad dhimbiil u leh ayaa laygu dhiibshaa. Suniyaha dhalaalka leh indhahaaga kala dhogan dhab markaan jaleecaa lay dhaqaaqba joojaa. Inkastoo dharaarahan dhuuxayga saaqdood feedhaha dhexdoodiyo maqaarka iyo dheeliga adigoo aad ku dhigan tahay, intaas waan dhugtaayoo halkii aan ku dhidibnaan kolba soo dhowraayoon ku dhalaan habaabshee, hadna maad ka dhooftood ka dheeraatayna yahay. Hodanay dhambaaladan fariimaha laguu dhigay lagu qoray dhawaaqee kaaga timid dhankaygii ee jacaylku dhinac maray, maxaa aad ka dhugato durba dhaadanaysaa. Dadka kuu jacayl dhibay ama uu dhankiis iyo dhuuxiisa uu culay, halis waa la dhalato hamiyuu ka dheeryahay. Aniguna dhabtaasaan hodanay ku dhaqanee, intaan iilka lay dhigin ii soo dhowowoo dhabta aayar igu qabo, ii dhiibba jeeniga aroosaan dhammaanayn aan ku soo dhawaaqay.